daawadayaal waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeeni dhadhan waa qayb kale oo cusub iyo weliba wareegi labaad waxay tartamayaashu ku tartami doonaan jabaati amaba sabaayad dhammaantood waxaan u wada rajaynaynaa guul daawasho wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan isugu nimid tartan labaad iyo barnaamijkeeni dhadhan 2022 halkan waxaa inoo joogaa 3 tartamo oo cusub 3 gabdhood waxaan leeyahay insha Allah guul baan idin rajaynayaa tartanka maanta waxay ku galeysaan jabaati amba sabaayad ayaa maanta tartankeenu ku saabsanaan doona waqtiga la idin qabanaya waa 25 minute waxyaabaha aad u isticmaalisaan oo dhan waxay ku jiraan xagga hoose waqtiguna idin bilaabmay saas ay insha Allah ku diyaarin doontaan
kaastuu kordhi
waxaynu soo gaadhnay waqtigii aynu qiimeyntii u soo gudbinaynay tartamayaasha. tartan fiican baa dhex maray Nimco iyo Xamda Cabdiraxmaan iyo Xamda Xasan. wixii lagu tartamayay wuxuu ahaa jabaati amba sabaayad. halkan waxaan ku haynaa dhibcooyinkii ay guddidu siisay ardayda tartamayaashan jeeda. marka haddaan ku horeeyo wixii comments aanu ka qabno guud ahaan markaanu saddexdeedii wada tashanay. Nimco cunto fiican baa soo bandhigtay, dhadhankeedu aad buu fiicnaa. maasha Allah, xirfadaada waxaa dheerayd gacan fudeedkaaga, wax kasta waqti hore ayaad diyaarsatay oo samaysatay. kaliya dhaliishan ku yar haynaa waxay tahay waxoogaa sonkorta markii dambe dusha kaga shubtay ayaa maxay heday ku badan oo dadka qaar macaan bay yeelan karaan. sonkorta ma jeclaysan karaan, inaad waxoogaa sonkorta markaad dusha kaga dareysid ama aad iska dhaaftid ama in yar qiyaasta ka yaraysid inta. waxaan u gudbayaa haddii la haydhaa Xamda Cabdiraxmaan. Xamda Cabdiraxmaan sidoo kale sabaayad fiican oo dhadhan macaan baad noo soo gudbisay. waxaad ku darsatay baan jeclahay beer kaas oo xoogaa ku yar keenay in yar noqoto yar jajabto oo kale. sidoo kale yar qafiifna way yar ahayd, waanay yar yarayd marka loo eego sabaayadda caadiga ah ee standardkeenu naqaano. xoogaa way ka yarayd sida kale, laakiin dhadhankeedu aad buu fiicnaa, kalarkeedu qurux badnaa, aad buu noo cajabiyey. Xamda Xasan Shukri. Xamda tartan fiican baad ka qayb gashay, cunto fiican baad soo bandhigtay, laakiin waxoogaa waxaad ku darsatay baan filayaa bikinkiina uu ka bedelay jabaatidii qaabkeedii. waxay isku bedeshay waxaad noo soo bandhigtay khubis amba ceeshkii roodhidii ayuu isku bedelay. walow dhadhankiisu uu fiicnaa, uu saxsanaa, laakiin wixii aynu doonaynay inaanu qaadano oo ahaa sabaayadii la shiilaya saliidda caadi loogu dubeeyey xoogaa way ka yar leexatay, laakiin sida kale dhadhankeedu aad iyo aad ayuu u fiicnaa. marka waxaan dul mari doonaa qof walbaba oo guddida ka mid a dhibcaha uu siiyey. aan ku horeeyo Nimco Cabdi Daahir. anigu guud ahaan boqolkiiba waxaan siiyey 93. Xamda Cabdiraxmaan Maxamed boqolkiiba 90. Xamda Xasan Shukri waxaan siiyey boqolkiiba 76. To me, you tried, but you must have the lead, the top one, and the last one. So, Mimo Abdi Dahir has got 89 points out of 100. boqolkiiba 89 ayuu siiyey maanta. Xamda waxay heshay boqolkiiba 87. Xamda Xasan Shukri 79. natiijada guud cidda ku guuleysatay inay wareegga labaad ee kan ku xiga u soo gudubto waxa weeyaan Nimco Cabdi Daahir oo kaalinta koobaad u gashay wareeggan, iyo Xamda Cabdiraxmaan Maxamed oo kaalinta labaad wareeggan ku gashay. waa hagaag daawadayaal, intaa waxay noogu dhammaaday wareeggeenii labaad. aad bay u mahadsan yihiin hablaha ka soo qayb galay tartanka. waxay ku tartamayeen jabaati ambaba sabaayad. dhammaantood waxay sameeyeen cuntooyin aan kala dhicin oo aad u macaan badan oo aad u qurux badan, laakiin haddana waxaan meesha ka maqnay inay guddidu ku sameeyaan qiimeyntii guddidu ku sameeyeen siday u kala sarreeyeen ayay qaarna ku soo baxeen, qaarna ay ku hadheen. marka dhammaantood waan u wada mahad celinaa, gaar ahaan hablaha soo baxay. hablihii hadhayna waxaan leenahay waad dadaasheen, meel fiican baad soo gaadheen, waad istijaabiseen, laakiin waxaad i rajaynaynaa inaad tartan kale oo kanoo kale inaad ka soo qayb gashaan. intaa waxay noogu dhammaaday tartankeenii ambaba qaybteeni. waxaanu sugi doonaa wareegga.